si rasmi ah ayaad ugu casuumatay Hargeysa xil aaliyaal xilliga doonto saaxiibtinimadu waxay ka garanayaan haddii Kenya ay go'aansato inay Soomaaliland saaxiib dhow ka dhigato waxaa Kenya u soo kordhaya saaxiib yaqaan saaxiibtinimada oo Soomaaliland la yiraahdo oo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهواء هواء السلام من ودن دافت كتبتين صور هذا برتلي يوتيوب كأنه حقيقة قف كذا ما الله يمسك سجى إن ما أنت واحد في عاوة وحصل بحنا 18 ماي يعني ما عرفتي الذي جاي وطن كينيا سويسرا اللي يمكن أساسي ومعرفتي هذا كل الدنيا حوالي مسلمان عرور ومعرفتي حوالي أول أخذ الفنانين يناير كده شيء بدل ما معرفتي مش سوق الدولة إن الكيمياء يقول دقايق يلا وحنا ما ذكي أساسي مرحبا waxaan soo galnay geejka weyn ama barxad weyn oo maartay KICC soo galnay marka gudaha u sii gudbayna insha Allah ugu dambeyn amar oo xaasil gudaha soo galnay dadka aad u badnaayeen maartay ground aad u badan ay ahaayeen dadka ma sha Allah inta taagneed inta fadhisay inta taagneed badneed chance loo meheleynin inaad kursi fadhiisatid dadka aad u badnaayeen hulkana ma sha Allah guud iska barakeysan oo ahaa dadka ila dibadii istaagnaayeen oo chance uma heleynin khudbada socotay markaan galnay gudaha khudbadii ay dhageysanay oo maartay xogo ka yar duubay marka toos uma soo deyn karo laakiin khudbada way dheereed khudbada u dheereed marka way isku bedelayaan dadka hal qof bisma hadleynin marba qof hadlay ninkan waa ninka bilaabay khudbada uu ku yar dheeraaday yani wuxuu ka sheekeynaa taariikhda Somaliland iyo istiijada soo martay iyo ka waramayay waa kan dadka u jeedin u maleynaa dadka inta fadhiyo inta istaagana badan marka chance-ka aad u maartay dadka ugu badnaa howlkan xogo waa yaraan هذا تعالى هي عندي ترى وده أنا وهو استشهد كمان في كتابين كتير وده متخصص كمان ضمن من بحال من الكتابين وكتب من كذا ومثلا أيضا بعد ما كتبنا كتب أدرسنا كتب أهل وهيك لغاية الكتب تشوفينيسي يعني كمان لما تشوفينيسي مثلا أيضا بس كمان Once again, thank you very much for your kindness, for inviting me here. I'm happy to see you children. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellencies and Ambassadors present, and all members of Parliament, both from Somaliland and Kenya, and distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. aniga waxaan rabaa Soomaaliland ku hadlo waayo maanta waa farxad weyn u mahadceliyo nasiya fursadda qaaliga inaan halkaas ugu imaano talabaad waxaan rabaa inaan idinku wada mahadceliyo wixii ka soo qayb galay dabaaldega caawa khayr Allah in siiyo waana mahadsantiin waxaa kaloo soo dhaweynayaa oona ku faraxsanahay oo in badan ba aan rabay inaan arko meelka Hargeysa soo Kenya ku soo aad baan ku faraxsanahay doorashada markaan gasheen waxaan dadka dabaaldegay salaanta qaaliga inii soo diray guuleyso baan ku leeyahay adiga iyo guriga iyo jidgiiba waxaan kala ku soo dhaweynayaa Kenya inta kula socoto wasiirada kula socoto dadka marti sharafta kula socdaan soo dhawaada Kenya ku soo dhawaada Kenya markasta waxay ku faraxsan tahay inay walaal inay noqoto garab inay noqoto in la istaagto in la socoto aniga wax yar baan ka soo qaadanayaa boom haddana waxaa soo gashay Safiya Cabdinuur member of parliament Ijara ayaa laga soo doortay gabadhan ciidan baarlamaanka ku jirta Kenya oo waa Somalilander oo maaragtay ama jaaliyada dadka Somalilander xaggan u joogay kamid tahay oo yani dadka dalka wax ka bartay oo waxna ka ah oo responsible ka ah yani oo member ka ah ay ku jirtaa ayadana khudbadeeda xaggaas ka bilowday inay support gareynayso Somaliland ama ka hadlaysay maaragtay xiriirka Somaliland iyo Kenya
ilaa iyo heer intuu gaaray dadka adiga ka shaqeeya waa adiga jaaliyada waaye iyadana kamid tahay marka waa kaa gabadha kale ee loo yeeray gabadhan kale iyadana loo yeeray waa gabadhii maaragtay madaxweynaha markuu Somaliland imaanayay gabadhii u qaaday warqada invitationka ah oo Kenya ka qaaday Nairobi ayadii odaygeeda geeyeen Somaliland soona kaxeeyay Muuse Biix Cabdi oo maaragtay ayadana dadku waxay ka qosatay in loo codeeyo yacni kaarkooda ama vote-kooda siiyaan Raila Odinga inay siiyaan ayay ka codsatay wayna hambalyeysay iyo tiimiga aad u dabaaldegtay aad u faraxsaneed marka la isku harin habeenkaas okay hooshtii ku socotay haddana waxaa loo yeeray dad Kenyan ah oo yacni kursi u tartamayo sida maaragtay ayagana dadka Somaliland dadka xaggan joogo ay uga codsadaan inay maybe vote gareeyaan booska u taagan yihiin iyo waxay soo bandhigeen inay codkooda dadka u baahan yihiin oo noo codeeyay dheheen iyo groupka ka socdaan ay maaragtay qof walba soo codsaday ninkan taagan hadda waxaas uu isagana weydiistay in loo vote gareeyo ayuu weydiistay Please welcome. Thank you very much, Abdurrahman, for those nice words. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. Somaliland Hanawat. Somaliland Hanawat. I will speak in Somali and then I will speak in English later on. waxaan caawa maadaama waqti badan haysan waxaan marka ugu horeeya aad iyo aad u hambalyeynaya shacbiga reer Somaliland meel kasta ay joogaan gurida ka joogaan intiina halkan timid waxaan leeyahay guriga gobonimo waa maalin aad iyo aad u qiimo weyn aad iyo aad bay noogu weyn haddana reer Somaliland ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaynu guusheena ka soo gaarno say that excellencies ministers I will say a few words in English. I think my colleagues, Fadal and the ambassador spoke about Somaliland a lot, so there's not really much left for many of us here. But I just wanted to talk about the fact that Somaliland not only has it as a beacon in the Horn of Africa, a place where there is peace and stability among the Horn, and I think the international community as a whole are now recognizing the fact that Somaliland must be recognized sooner than later. And inshallah, we are all hoping that Somaliland will be a member of the international community very soon. I think our communities and our government and the people of Somaliland work very, very hard to ensure that Somaliland is on the map, that Somaliland is known for its stability and its governance. And I do believe that it's all praise that Somaliland will be an independent country very soon and a member of the international community. Let me also acknowledge my colleagues here, and in particular the ministers and the mayor of Hargeisa, my friend. Welcome to Nairobi. aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta aad baan idin jecelahay waan ogahay inkastoo aad halka ku nooshihiin inaa aad ii taageerteen ii soo ducayseen aniguna markaa ducadiinni aan ku guulaystay oo aan codkaygu fara badan ku helay hadalka ma badinayo waxaan doonayaa laba arrimood oo keliya intaan aan dhacdo waayo anigu kamaan mid ahayn waftigii laydii soo diray magaalada Kisumu baan joogay si baan halkaa ku lahaa waxaan is ilaalkee ugu dhow ee dadkaaga maalinta qiimaha leh ee qiimaha weyn
aad kala qaybgeli karaysaa farxadda marka inaan farxaddayda la qaybsano baan u imi laakiin anigu kuma soo talagelin aan idinla hadlo haddiise mikrofoonka laygu yeedhay laba arrimood oo keliya ayaan doonayaa hadalkayga ku soo koobo insha allahu tacaala ta koowaad waxa weeye arrinta koowaad waxa weeye waddankan somalilan la yidhaahdo haddii qaar innaga inaga mid ay u dhinteen sababta ay naftooda u bixiyeen ee qofka bini aadamku waxa ugu qaalisan uu bixiyaa waa naf sababta u bixiye waxay ahayd ilmihiisa uu ka tegayaa inuu ku noolaado nolol wanaagsan ragga ilaahay madaxda ka dhigay in anigu ku jiro waxaana laga rabaa inaanu taariikhda gundhigeedu yahay in dhiig iyo naf loo huray inaanu nolol u samayno carruurtii dadka mujaahidiinta ahaa ee qiimaha lahaa ee sharafta lahaa inay nolol wanaagsan ku noolaadaan anigana waxaaba si gaara layga rabaa inuu inankaa yar ama inantaa yar inay helaan magaalo qurux badan oo u qalantay in loogu yeedho caasimadda hargeysa ilaahay idankiina ilaahay wuxuu nagu sugayaa maydeeda hargeysa oo ka duwan hargeysada ay maanta tahay waxaanan hubaa insha allahu tacaala qof kastoo innaga inaga midoo madaxi inuu meel calaamadsado oo somalilan markiinu u dabaaldegayno aannaano halkaasaynu ka qaadnay halkaana waynu geynay calaamaddaasaynu wada samaysanaynaa 18 May ee sanadka soo socda guulaynu isula imanaynaa insha allahu tacaala qodobka labaad waxa weeye walaalahayga reer somalilan ee haddana kenyaanka ah iyagana kelmad quraataan ku odhanaya hadalka dheerayn maayo kelmaddaasi waxa weeye somalilan ma rabtaa inaad wax tarto lama rabo halka waxaan maqlayay dad kenyaan oo aqoonna baa jiray somalilan lagu celiy yes aqoon waan u baahannahay laakiin waxaa la doonayaa somalilan inta joogtaa ku filane halkan aad wax ka noqoto oo aad ku guulaysato ood aqoon-yahankeeda noqoto ood siyaasigeeda noqoto oo aad ganacsadeeda noqoto oo walaalahaga kale kenya waddanka kulale aad jeclaato wax u qabato markaad madaxdan ka noqotona calankan iyo dadkaaga somalilan waxbaad tari karaysaa marka waxaan idinku dardaarayaa inaad guulaysataan oo saa u shaqaysaan walaashay xildhibaane safiya aad baan kuu salaamayaa si rasmi ah ayaad ugu casuumanta hargeysa xilli aalayaala xilligaad doonto waxaanan ogahay walaalahayga reer kenya somalilan inay xidhiir la yeesho kenya inay xidhiir la yeelato dan weyn baa ku jirta somalilan waa dal yar oo wanaagsan oo fursado badan yaalaan waa dal saaxiibtinimadu waxay tay garanaya haddii kenya ay go'aansato inay somalilan saaxiib dhow ka dhigato waxaa kenyana u soo kordhaya saaxiib yaqaan saaxiibtinimada oo somalilan la yidhaahdo oo geeska afrika wadda ku yaalla ka mid ah waxaana rajaynayaa ciddii timaadaba inay somalilan saaxiib dhow la noqoto waxaanan u mahadnaqayaa xildhibaanada reer kenya ee somalilan saaxiibka u ah somalilan halkay joogtana saaxiibtinimadaasay ku tiri somalilan ha guulaysato kenyana ha guulaysato soomaalida kenya ee haddana ah reer somalilan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa halka jooga iyagana waayo waxaan ogahay dad badan oo soomaaliya oo somalilan jecel ayaa jiro oo caaway nala jooga idinkana aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu والصلاة والسلام على رسول الله. dadkiina qaaliga ah ee halkan jooga marka aad waxaad jeceshahay ama dad aad jeceshay soo hortaagtay hadalku uu ka qaldama dhalinyaradiinna hablihiinna quruxda badan odayaasha madaxda kenya ama baarlamaan ha ahaato ama xukuumadda ha ka tirsanaato ama eeda kale ha joogto safiirada madaxda somalilan ee halkan joogta ee wasiirada iyo maalinkan maanta xildhibaanada iyo mayeerada iyo cid walba oo caawa halka ku sugan xafladdan ee dhimay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa haddaan dhaafo shacabkiina qaaliga ah halkan jooga ee caawa u dabaaldegaya 18 May waxaan idinku salaamaynaa haddaan nahay madaxdii reer somalilan salaan kaliya laaba shucuurta aa qabtaan iyo dareenka aa qabtaan ee somalilan iyo jacaylka u haysaan ilaahay idinka jisaaysiiyo
ilaahay jannadii ha idinku bedelo wax ka weyn oo la isku duceeyaa ma jiro أنت وضعفيا ما أنت أيضا إيه دين ماي أما ستيريا تويتا ماي وحي حمبار سنتهاي تاريخ فربضا أما تاريخ في سومالي لا نوعلي وحي كوه سنتهاي ما أنت وأنا قور رمي وحنا نسلي بوغات بدن بانا قبري كرا سومالي واشن سومالي كينيا وأنا في بري قرر ورجلي سومالي لان ويوهن قنتي في قوضنا كمو كتا في سومالي لان ويوهن قنتي وقتكي سواها جري هكا يمرهب سومالي لان waxaanu qabnaa dhisaan Kenya oo neerada quruxda badan ay ka yihiin bulshada waxay u halgameen Soomaalida Itoobiya oo dhigooda ku taatay waxay u halgameen Soomaalida Djibouti oo dhigooda ku taatay waxay u xureen xornimadoodii ay Ingiriiska la hadeen wax la yiraahdo Soomaali weyn oo shanta Soomaaliya la isu keeno oo qoladii markaan ugu xigtay calanka aanatay sacrifice lagu sameeyay bidun shuruud in calankii iyo xorriyadii ay yeeshay Somaliland xamar la geeyo haddaba 18 May maalintii 60kii ee 1 July أنا جاي حرمتي سوماليلاند اللي هي لما تنتهي تون دلتي ما يجرين حاجة كسر بحدي ما تعمل وهي كسر بحدي حرمتي هو رئيسي إيه سومالي إيشو سومالي دي مو سومالي سنة سومالي وسومالي لانا سكت فات كاي سمايسي إيه سومالي وين سمايسي شفت سومالي دي نمسك كنتو أيا حمر يا سومالي كعبة عليه وهي كنت على المالكي ستة هي ستة في برلمانها يا برايم مستر محمد حاج جبران قال عامل كتيري إلى حقران وأنا وحبك في دولتي بوريسي يتبع لأن أرادوا أما حماة سوماليلاند ما أنت زيبرام ما نوى بنو يسيب الرئيسي واحد عين إسلام مركيبة ستحكي وزيرا للسياء وهي أما كم يدين عزيزان إلى أبيسة يوم الأغلان واحد عضي إلى مدري إسراكيش إلى مدري وسري سيني إقلاف سميان ويسوس عتي إنت أصلا عاو معك كذا مدري كرم واحد بيصور وزي إن مركي ترسكي عينا كماشة خمساني وقال إلى الحادث والأولي كانت تجي سوماليلاند ودين يا باب يا واحد الآن أنا بقول هذا القولي كلا أي حاجة هو يسوي أو يسوي كسر ويسوي أو مثلا زرع ولا يسوي من أي كلام يسوي كده هو سوى كلام أو حرمني مثلا كشيء كان كحول يسوي ترسكي مكانتي تشجي يتراني سيدي مشاعري مجانا هذا تبع الرعاة لا يسوي يمين تراني لا سلمي هو يسوي شعب في نفس مالنا مثل سلام عندنا يوم الكهرباء إيه تقول شعب حركة عمل يستوى كأسر الكويتين إن لا نروح لمدي وبني سكانه شعب كي بحدن كي كوخس كيسة هي سكة كي برلمانها هي برايم مستر كي تري شعب معاهم كي أيام حمر خريتي كي سكة هي سمالنا أيا أسا لما كوخس بي يا مدحلو دي إلي كرسوا مدغانا كوخس عنه نصر نقشرها مالي بها دوقالي إيه تاريخ دي سومالي لا تنحمارتي مالي تاريخ نصر نقشر حقين كوخس بين إيه نصر نقشر ميلة هدو مالي تاريخ تبادي إليه وعملت ولا كروبية سكة سنوات والله شرحي سومالي لا بحيقة ستين ويسكت شتين وانا كل شتين عالم كنا نبي لنا دولة وين دولة كمان واسسي هاي كنا ويجارسة ما بكم قد حرموا بقرونا دولة هاي العالم يبقى كمان وتا مدحنا سيد سوماليلاند يقدك حتى بك شيء أما يمين وكان وضي تفاوض ومرينيا مدحنا هذا مدحنا وهو مرينيا وأنا لا نرانا وجه أبوك أنا مرحبا يصير خصوص على روسيا مرينيا إذا أنت في أندية إنت بدل من صوم الغطي سفيا iyo inta deeqa labada hablood gaar baan sameeyay joogo jira maalan waxaan kalaaka ka hambalyeynaya oo maaleeyay inay aad u ceshiin Soomaaliland iyo gabadha hargeysa laga jecel yahay Soomaaliland waa reer oo dhiga asaga hada bisaan asaga inta way soo baxay hada biso wala hada iga horeeyay la xisiyay hadda ku jiray hadda waxa ka diray adoo fariin wadintii hore hada shaqada duwanahay wala iga hore Soomaaliya hadii ya qaadiga wala dimada uu igu horeeyay waxa ilaahay amro ana ya hawli qaadiga qaadiga wala wada wasiiray واسمع ما وش أي يستلو أنا بيستكي عادي يا بنتي نقول علي يا حبوب يا دي للوية يا ما تضحي يا ديارين شيء يا جدية وعيو وضع يعني سوالي لان ومكسر متبانا نسك السمرين وحانو شيئا ونركب فريل ما بكر ما توبدر يا عدي هاك الجوتة حليل لنا عن لا جاهزية من هؤلاء رسول الله وفي صوماليا حسن شيخ أيام فريل دريا ولين نفتو ضروري من شيئين صدن يكون سنة كبعدي Somaliland inay markii horena iyagu u timi oo rabitaankooda ugu yimaadeen maantana rabitaankooda kaga tageen dibna aanay u soo noqonayn xasan sheekh waxaan leeyahay haddaad doonayso markii labaad baa la doortay inaad taariikhda gasho waxaad ku calooladeegtaa waa la wada hadlayaa iyo gabadhaha iyo waxaas waxba ma jirto maxaynu ku wada hadlay waxbaynu isku darsanay wixii la kala waxaad ku calooladeegtaa xasan oo taariikhda ku galaysaa inaad ku calooladeegto u sheegto tolka
iyo reer Soomaaliya waa nimankaasu dalbade ee aynu walaalnimo iskaashataan aynu ka dalbanno farahana ka qaadno isna ictiraafno xasan intaasaan faraya haddaad intaas samayso waxaan kuu hubaa shabaab baa ka baqataane shabaabna insha allah ilaahay uu idinka khaarajinoo xal bay idinu heli idinkuna ismayna buuxisaan oo 5 dowladood ama 6 dowladood baa tihiin idinkuna khilaafku idinka biyo annagaa dib idiin dhisi sidaan barigii hore idiin dhisnay waxba ma idin noqoteen haddaanan idiin dhimanay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirku aad buu u mahadsan yahay